galab wanaagsan saaxiibayaal sidaa u dhantiin mar kale maalin wanaagsan meel kastoo aad dunida ka joogtaan fadlan hadday tahay daawashada ku waraysa channelka maanta soo booqo subscribe saaro si aad ula socoto shaxda maalinlaha ee waqtiga la soo gelino intaa kadib sida aad ka warqabtaan caawa waxaa la ciyaarayaa UEFA Conference League iyo UEFA Europe League sida ballanteena shax labaad inaan soo geli doono maanta marka shaxdeena koowaad soo gelin ayaan intaas sidii ku sheegnay shaxdeena labaadna waxay ka kooban tahay 17 kooxood halka uu dhisku yahay $40 waxaana dhammaan ka soo xulnay UEFA Europe League iyo UEFA Conference League kooxa intaan ka badan ayaa jira balse inta ugu macquulsan ayaan idin soo waxaan ugu horeeyay shaxdeena PSV Eindhoven iyo Zurich awa waxaan guud ahaan ciyaarta u xulnay PSV Eindhoven inay badi karto tan labaad waa kooxa wada ciyaar doona AS Monaco iyo kooxdan kale AS Monaco iyo kooxdan kale guud ahaan waxaan u xulnay inay AS Monaco kooxdan guud ahaan ciyaarta 2 gool iyo ka badan ay ka imaan karto saddexaad waa Fiorentina iyo Hertha sidoo kale waxaan u xulnay 2 gool iyo ka badan inay ka imaan karto sidoo kale tan afraad waa Austria iyo Villarreal Austria waxaan guud ahaan ciyaarta xulnay Villarreal awa inay badi karto shanaad waa Bulkani iyo Sivasspor kooxdan qoran tahay Bulkani iyo Sivasspor oo UEFA Conference League wada ciyaaraya waxaan u soo xulnay sidoo kale awa 2 gool iyo ka badan inay ka imaan karto shanaad waa Nice iyo Slovakia kooxdan qoran tahay waxaan guud ahaan ciyaarta u xuleynaa in Nice Braga ama badis ay gali karto sidoo kale West Ham iyo Anderlecht West Ham Braga ama badis Manchester United iyo AC Romania meesha fahamka u baahan waa halkaani taasoo u isticmaalay handicap fiirin lacag saaran tookadii hore labadan kooxood waxay soo galeen Braga ma soo galin balse Manchester United away waxay ku soo baday 3-2 halka AC Romania ay dhalis 2 gool Manchester United ay 3 gool dhalis awa maadaama United gurigeeda joogto Odiska aad u faraha badan afiirinin hore u aragtay Odis intaas ka badan kooxaha in laga badiyay tii Odiska oo badneed saaran ayaa xilliga qaar kooxaha weyn aad garaacayso marka laakiin annaga hadda waxaan u xulnay in kooxdan AC Romania aan 5 gool looga badi karin 4-0 haday ku dhamaato wan waaye laakiin 5-0 laakiin ilama ahan inay 5-0 looga badi karo kooxdan sidoo kale Ludogorets kooxdan qoran tahay iyo Ludogorets iyo HJK sidoo kale kooxdan awood badan double chance ayaa noo saaran UEFA Europe League ay wada ciyaarayaan sidoo kale Real Sociedad iyo Sheriff sidoo kale waxaan wan siinay Real Sociedad aw inay badi karto Union Berlin iyo Malmo Union Berlin badi doonta balse double chance ayaa noo saaran sidoo kale Fenerbahce iyo AEK kooxdan qoran tahay Fenerbahce ayaa iidan double chance noo saaran kooxdan kale ku sii xigtay iidan 2 gool ayaa ka imaanayso Bodo iyo Arsenal sidoo kale 2 gool kooxdan kale iidan FCSB kooxdan kale iidan double chance kooxdan kale noo saaran Lazio iidan badis Qaraba iyo Olympiacos Paris waxaa leenahay 2 gool ayaa ka imaanayso marka guud ahaan shaxdeena labaad intaas ayaan ku soo jaraynaa koodkana waa kaasa koodka hadaa yeereen waa QC62E aad baad u mahadsantiin guuleysta